عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن ديوغا شرفت له نجا دغيسنيا ادونكا دعالديسا ميل كاستا oo aad naga daawanaysaan haddaba halkaan nagala socon doontaan waa Kalsan TV oo isagu barnaamijkan hadiya jeer ka sidaya hawada Soomaali meel kasta ay joogtana ay ka daawato barnaamijka la magac baxay kaftanka siyaasadda haddaba madasha siistay ayaan iyadu marna ka maqnayn oo hadiya jeer dadka Soomaaliyeed ee meesha laftooda joogo ka dhageysta halka wixii hadba soo cusboonaada iyagana aad ayaan ugu mahad celinayna haddaba kaftanka siyaasadda hadba meel baan ku tagnaa Soomaaliland wada weydeen khatmo iyo maakhir waa ogeydeen Puntland laftigeeda waa la tigay Jubbada waa la tigay haddaba maanta Ali Xaraare طلب حقو تجي دونا مسيح أيا يدو مشى هذا يجر هذا بالمال أيو آدا بالآن لفتي سوي دينه على حرارة مركب برنامج كسر دو كفتن كسياسة ما صدق ياسين إن مركب لبدن كويدي عليه ملا بدن أيا تكت ما أنت تدك الصومالية دون الدجاونا يا مكو إن دجيزنيا حليا علي ما أنت وحجة حقو توجا كفتن كسياسة ياسين وما أنت حويان مقالة عاصمة الصومالية مقدشو ومقالة مدحدي لفتي جديد ومقالة مدحدي أشاي هي أن مقالة مدحدة برنامج كده قاعد بوجب لعنيه هي برنامج هذا كله سببته هؤلاء ألف ربضان هواي أي اسكت شراء وقص على إسلا عاصمة مقدشو هي سيدنا الله سبحانه معمول له جبي جود بقى وحاي يعني أنت بدن أي اسمي مادان شعب يدك حكومة وش قيابة ها إسلا عاصمة مقالة مقدشو يجوا أربعة فربضان يدنا فربضان ها مركع كله هي سفر كي waxaan ka bilaabay markii ugu horeysay markii aan tagay magaalada Muqdisho waxaan garan waayay markii ugu horeysay ba airportkii Muqdisho oo aan dhowr jeer ka digay hore ayaa si ka bedelan sidii aan qiyaasiyay ahaa oo ila muuqday mid si fiican mika dhismo wanaagsan loo dhisay oo qurux badan oo hab wanaagsan oo tababar fiican dad qaba ay diyaaradaha u hagayaan iyo sida loo maro meelaha marka processka dadka soo degay ku dhoofay صح ciidamada ajnabiga ayaa iyaguna ka shaqeynayay oo aan de hore Soomaaliya bariga hore u joogi jirin airportka ajay Amazon oo nabadgelyada qaabilsan haye isha la isku wada hayaa haye marka way ka duwan tahay aragtida ugu horeysa caasimadii hore ee Muqdisho airportka sidoo ahaan jiray ka bacdina waxaan qaatay taxi waxa ka qaatay airport marka ka baxday airportkii haye marka taxilihii wuxuu igu yiri xagaan ku geeyaa haye waxaan ku iri hotel aan seexdo dan inta dadada dhameysanayo haye marka wuxuu igu yiri wuxuu eegay accent afkaan ku hadlayo haye marka wuxuu igu yiri adigu ma waxaad reer Waqooyi waba ku wartiba ha afkay haye dabeetana waxaan ku yiri ha sida wuxuu jiraan haye wuxuu yiri de hotel kasta igee ma ha hotelka reer Waqooyiga hoteladooda ayaan ku geenayaa haye dabeetana waxaan ku yiri anu hotel ma rabaa reer Waqooyi iyo reer Koonfur iyo reer Bari midna de hawl aan ka wata ma jirto haye marka wuxuu yiri taxilii intuu dib u soo eegay adiga dina kugu jirtaa ajay dana kugu jirtaa si digniina haye waa maxay danta kugu jirtaa baan ku yiri wuxuu yiri xagga nabadgelyada waxaan ku yiri haddii ay sidaa tahay bal kuwa aad garanaysid hotelada midige haye hotelkii buu geeyay Yaasiino dabeetana hotelkii markii aan tagay subaxii markaan soo kacay waxaan eegay dadkii meesha u badnaa dadka hotelka degan iyo dad fadhiyay meesha cuntada lagu cuno haye dadku waxay ka hadlayeen mashaariic waxa la sitay laptopyo waa war iyo iPad haye marka dadka meesha fadhiya markaan eegay meesha lagu qadeeyo hotelka aan ku digay markaan qiyaaso 80% ragga bidaar bay wada lahaayeen تمام ajaayib marka sida ninka hotelku ii sheegay wuxuu yiri hadii aad bidaar iyo isku aragtid laptop ninkaas qurbuhu ka yimid wadanka kama iman qurbuhu ka yimid mar hadii bidaar iyo laptop soo raacdo qurbuhu ka yimid haye marka hawshu u socdaan waxa weeye waa xilkaasna ama madaxtooyada ha tago ama cid ha ku xidhnaadee wuxuu doonayaa inuu mashruuciisa halka ku dhamaysto dabeetana qolkii hurdada ayaan ku noqday haye qolkii hurdada markaan tagay ayaan subaxii soo kacay mise waxa laga hadlayaa qarax dhacay xalay ama waa bari waa soo dhawaadkii oo magaalada Muqdisho ka dhacay
inkastoo hoteelka aan ku jiray aanu ahayn haddana hotel kale ayaa dad badan lagu laayay oo qarax ka dhacay bismillah dabeetana waan fiirsaday warkii waxa ii soo baxay madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa ka tacsideynaya dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay shilkaasi ama qaraxaas ka dhacay hoteelka laakiin arinta Yaasiin isu ka qaban weydo waxay aniga lafteedu aad u argagaxsan oo yaaban oo qaraxa aad uga naxay ballanna ka samaystay madaxweynaha inaan la kulmo ayaan arkay madaxweynihii oo marka uu dadka u tacsiideynayay dad badan iyagoo ay dhinteen aad u dhool cadeynayay ama qosol ku dhawaad ku jiray dabeetana waxaan aad uga fikiray waxa madaxweynuhu uu u muujin waayay dareenkiisa inuu aad uga naxsan yahay waxa dhacay arintaas oo igu qafilan ayaa markaa maalintii dambe aan ballantii ku tagay madaxweynaha ballan ku samaystay madaxweynaha madaxweynuhu markaa waa laga aqbalay dabeetana xafiiskiisa ayaan ugu tagay salaan kadib su'aashii igu taagneed baan weydiiyey waxaan ku yidhi madaxweyne qarax baa dhacay qaraxaas markuu dhacay waxaan ka daawanayay hoteelkii aan ku jiray adigoo dadka u tacsideynaya laakiin qosol baan kaa dareemayay qosolkaasna keligeen baa ahay dad badan baa kugu sheega inaad mar kasta qoslaysid waxaan hadda ka hor daawaday adigoo jooga waddanka Kenya oo u tacsideynaya Uhuru Kenyatta madaxweynaha waddanka Kenya dabeetana markii ay wada taagneedeen madaxweynuhu waxay moodaa in indhihiisa ilmo ay ku soo taagneed Uhuru dadka laga laayay uu aad uga xumaa oo ay kooxda Al-Shabaab ama argagixisadu ay leysay laakiin adigu waa dhool cadeynaysa markaa isagoo la taagan marka tacsiye ay diriyay dabeetana waxaan ku yidhi xilliga tacsida iyo xilliga farxaddu qosolkaagu miyaanu ku kala xidhnay markaa lafteeda madaxweynuhu aad buu qoslay marka laftigeeda waa qosol ku dhuftay wuxuu sheeko kale oo aan ku qoslay iyadana wuxuu yidhi calow marka ugu horeysa sheekadan qosolku sida ay ku timi ayaan kaaga warramaya adiguna dadweynaha u gudbi si ay u fahmaan waxa qosolkan yahay marka ugu horeysa buu yidhi naanaysta ayaa la odhan jiray yaraantaydii aan la soo kobcay ama la soo koray naanaystaas waxay ahayd gurguurte dadka qaar baa u haystay inay tahay cay laakiin cay maaha waxa weeye naanays saxa oo yaraanteedii la bixiyay ilaa yaraanteedii baan watay aad baan u nacbaa buu yidhi naanaystaas dabeetana waxaan jeclaa inay naanaystaasi iga hadlo markii aan madaxweynaha noqday ayaan bilaabay inaan qoslo oo dhoolla caddeeyo oo dadka aan u tuso inaan ahay nin aad u farxad badan at least waxaan islahaa abaalka dadka Soomaaliyeed maadaama aad madaxweyne tahay waxay ku naanaysi doonaan farxaan ama xasan qoslay laakiin weli waxa ii muuqata gobolada Soomaaliya qaarkood marka xanaaqaan ayaan idaacadaha ka maqlaa buu yidhi xasan gurguurta waxaan u sheegaynaa waan ka gudbay waxaan ku yidhi madaxweyne imsa joor baad dhooftay 3 sano u dambeysay ee aad madaxweynaha ka ahayd Soomaaliya wuxuu yidhi waxaan dhoofay 311 jeer oo 2 jeer oo xajka ku jirto dabeetana dib baan u eegay waxaan ku yidhi adigii Shariif kuma diyaarada badnaa wuxuu yidhi wallahi Shariifku marka si loo eego dhinac isaga badnaa si kale marka loo eegana anaa uga badnaa laakiin waxaan ku kala duwaneen buu yidhi Shariifku isagoo ka yimid Carabaha ayuu Nairobi ku soo degayaa dabeetana airportka isagoo la salaamayo oo doonay inuu Muqdisho tago ayuu dib u eegaa diyaaradihii dadku u yimid ku yiraahdaa diyaaradda weyn intee u socotaa markaas la Suudaan dib u buugu noqday laakiin anigu habka ma sameyn jirin rag baa jira Nairobi jooga oo ila soo socodsiiya waxa shirar iyo xaflado iyo kulan caalam ka dhacay oo dhan oo internet kala socda waa la soo email gareeyaa dabeetana emailku man eega weegan imisa flight baa ku jira 5 flight 2 flight ilaa Shiinaha ayaan gaari buuri waa fogaaday maamul goboleedyada madaxweyne aad baad isku mashquulisay inaad maamul goboleedyo badan aad samaysid dib badan baa ka gaadhay iyana qaarkoodna dib badan bay ka tirsanayeen maamul goboleedka kugu dhibta badan ee aan jeclay marka xaqiiqda laga hadlo waa kee baan ku yidhi isagoo aad u fikrin madaxweynuhu markii bay yidhi Puntland baa ugu dhib badnayd buu sababtoo ah wuxuu yidhi Puntland haddii xataa aan tago oo aan soo madax salaaxo markaan soo noqdo idaacadda waxaan ka dhageystaa kalsoonida waa kala noqonay Muqdisho iyo federaalka sabab soo noqonba moodoo markuu iyo Puntland ka soo hawada soo socda ayay ka baxaan buu yidhi
dabeetana dagaal hoose ayaa in badan noo dhaxayn jiray waxaan hadii jir dhigta u taagaa hadii maamul goboleedba laga hadlayo in Puntland ay tahay cid wax tirsanaysa ka soo gudbaan ku yiri marka laga hadlayo hogaamiyaasha Soomaalida kibaan jeclay maxaad u jeedaa buu yiri kee kugu dhib badan baan ku yiri wuxuu yiri Axmed Madoobe waxaan waa maxay sababtii wuxuu yiri si kasta yeelay Axmed Madoobe nin sahlan oo iska jabhad ahaa baan moodayay markii hore waxaan isla cabaar yara gilgil isaga dan uga tagi doonay si kasta yeelay wasiin weeyday buu in Jubaland Axmed Madoobe aan ka farmaroojino ama aanu Jubaland oo aqoonsan weyno inay tahay meel jirta laba kaxin karo Addis Ababa tagi buu Axmed Madoobe daabelay Nairobi baan tagi Axmed Madoobe faraha ka qadbalay Nicholas Key ayaan wada hadalay arrinka George Bulle ninkii Axmed Madoobe oo aanan moodin siyaasi weyn oo afaf badan ku hadla sinaba waan rujin karo waayay hatta Faarax Abdul Qaadir waan u diray wasiin weeyday buu marka ninka igu dhigta badani waa Axmed Madoobe madaxweynaha wuxuu weydiiyay xildhibaanada Soomaalida ee jooga magaalada Muqdisho marka aad la sheekaysatid siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaanba maxay jecel yihiin xildhibaanadu buu yiri waxa aan laga soo gaarin aad ku jecel yihiin oo waxa la yiraahdaa mooshin weyna diyaariyaan marka qaarkood wax maqlaysa buu yiri xildhibaanada qaarkood oo mid leeyahay niyo guri baan rabay inaan dhiso qabiyooga ah Dubai laakiin hadii mooshinka ugu dhaqsaha badan yimaado saddex bilood soo socota waa ka gaarsiin karaya laakiin hadii mooshin ima waayo guriga hawshiisu wuxuu noqonayaa mid iska daa wala wareey karaaba waxaan weydiiyay shacabka Soomaalida markaad u fiirsatid in badan baad la hadashay in badan baad booqatay maxay ugu jecel yihiin markaad madaxweyne ahaan aad hor istaagtid wuxuu yiri shacabku waxay aad u jecel yihiin qabyaaladda hadii dhinaca qabyaaladda aad ka martid oo tiraahdo reerkiina sadkii waa loo badinaya shacabka aad ugu tumayaa buu laakiin shacabku dad daacadnimo iyo Soomaalinimo iyo mustaqbal iyo waxay mudan doonaan ma jirto iyo dulqaad iyo sabir looga sheekan karayo ma baaha buu shacabka Soomaalida wala dhinaca qabyaaladda ka martaa markasta way ma qabyaaladda ka martaa waxaan ku yiraahdo maxaa jeceshay in marka la doorto ayaa ugu fiicnaan lahayd buu 2016 in la igu celiyo kursigaas waxaan ku yiri yaa isku hadlaynaysaa hogaamiyaasha kuwa gobolada iyo dadka kale ee madaxda Soomaalida ku jira cid arrinka kula qabto kugu taageersan ma jirta Cabdulle Maxamed Ali Gaas baa ka warbiyay oo la qabo inuu soo noqdo inaan soo noqdo waxaan ku yiri Soomaaliya had mar dhow igu lahaa gobolada Puntland baan aan jeclay wuxuu yiri taas waa siyaasad waan ka gudbay wuxuu ka hadlay isagu doorashada soo socota sida ay noqon doonto sax yaasinow waxaan weydiiyay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu necab yahay mar hadii aan weydiiyay waxa uu jecel yahay waxbaan tuhunsanaa laakiin tuhunkaygi markan been buu noqday waxaan weydiiyay maxaad necabtahay wuxuu waxaan ugu necabay wariyaasha talo maxaa dhacay waxaan wariyaashu way farbadeen waa kuwa wax sawira bay wari kuwa wax sawira kuwa warasada qaadamaha waxaan maxaa jira wuxuu yiri adar wax soo sawirayaan adigoo roog casoo lagu dhigay sometimes intaad ilooday baal maray ama roog dhinaciisa maray waxay soo sawirayaan adigoo chancellor gabadha madaxda ka chairman oo kale ha gareynaya dabeetana dhabarka iyo cabaar la isku yara dhajiyay ay soo sawirayaan buu waxa dhacday buu yiri mararka qaarkood ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron oo albaabka ka yar furu waayay cabaar daahay ay markiiba sawirka internet soo gelinayaan dabeeta internetka markaan galo waxaan ku wada arkaa sawirro wada anigoo madaxweyne ah oo wax yar kharibayeen inna lillahi marka waxa aanan jeclayn inaan hadii jeer ama aan nacaba waa nimanka waxaan ku yiri ra'iisul wasaarayaashii ku soo maray kebaad ugu nacbayd wuxuu yiri Cabdiwali يولك Cabdiwali wuxuu yiri Saudi Arabia anu aqoon ma lahayn ayaa la sheegay rag far badan oo saaxiibana inuu yahay nin wanaagsan oo daacad oo shaqayn karaya markii aan ugu horsaan arkay madaxtooyada aan kula kulmay in aad miskiin abu ah markii aan xafiisadii ku kala wareegnay ee ra'iisul wasaare aan ka dhigay annaan hawsheedii watay madaxweynaha
ay ma ninkii madaxa isla galay waxa kala ka saaray la waayay maalintii waxaan qoraa buu yiri konton warqadood haye habeenkii buu 70 qoraa dabeetana ninkii baan anagii international communities madaxa isla galay haye ninkii waxaan arkay inaan la dhaqaajin kareeba haye marka ninkii igu dhibta badnaa buuha ee aan overtime isla gaarnay buuha wuxuu ahaa Cabdiwali haye waxaan ku yiri iyaad ugu jeclay intii ra'iisul wasaare soo maray haye marka uu qoslay Xasan wuxuu yiri Umar Cabdirashiid Ali Sharmaark talo sababtu maxay tahay waxaan sababtu waa maxay wuxuu yiri waa nin dulqaad badan haye waa nin amarka qaata haye waa nin aan haba yaraatay warqadaad u qortid maya ama aan u kaadino aan ku soo celin jawaabta marka nin ii daacada aniga dalkaba uu daacad noqon aniga laakiin very loyal to me waa Cabdirashiid Ali Sharmaark Umar Cabdirashiid Ali Sharmaark waxaan ku yiri oo saacid isba nin daacada buu ahaa aad u degan adigana daacad ku si awliba haddana meedana wada shaqo weydinkiis ku dhacay wuxuu ma saacid nin daacada buu ahaa laakiin isagu aad buu hurdo badnaa aye baba marka xafiiska ma yeeman jirin ba aye marka waxa lagu yiraahdaa waa hurdaniki aye marka difference kaas buu dhaxay buu yiri aye nimanka waxaan weydiiyay arrin kale oo dadka Soomaalidu ay inta badan hadal hayaan waxa weeyaan ninka la yiraahdo Faarax Cabdulqaadir maxaa idinka dhaxaya laba ra'iisul wasaare ayaad ku weyday Faarax Cabdulqaadir Daraadi Faarax abaalkadu haysaa maxay wuxuu Faarax Cabdulqaadir marka uu horeysa waa ninka keenay ra'yiga inaan anu madaxweyne noqdo fikradda ka dambeysay marka laga hadlayo kooxda dambe jadiid waa nin active aad u firfircoon aad ii jecel waa ninkii ugu horeeyay ee qadar ka soo qaaday lacagta laga doortay Faarax abaalka kale anu haya waxa weey buu xataa iska daa wax kale waa ninka gurigii uu lahaa Muqdisho markii aanu finalka sii mareynay doorashada iibiyay anigu wali waxba helin laakiin aan ilaahay u mahad celiyay oo neefta ayga soo booday markii la sheegay inaan ku guuleystay jagada madaxweynimada in gurigii marka Faarax uu aan damaanadiisa qaadi karay in dib loo soo celiyo haye marka Faarax Cabdulqaadir waa garabkayga midig waa inaan marnaba ilaabi kareen arrinka ugu dambeeyay Faarax ku jecel waxa weeye afka Carabiga aad buu yaqaanaa meel kasto Carabiga wadan kasta Carabanto anigana afka qura ee dhagax laga saaro afkaas weey dabeeto waxaan ku jecel Faarax waxyaabo aad u fara badan dadka Soomaaliyeed laakiin ma fahamsan inuu yahay Faarax nin wanaagsan oo daacada oo jecel dalka Soomaaliyeed guud ahaanba inuu horumaro Faarax arrimo fara badan oo xitaa ii suurta gali waayay oo aan ergahan ugu diray gobolada qaarkood uu soo dhameeyay oo nin dhamaan karaya waxaan weydiiyay Sool iyo Sanaag oo doonay inay maamul sameystaan magaalada Nairobi lagu wada hadlayay maalmihii u dambeeyay arinta maxad kala socotaa mudane madaxweyne ma islaadahay labada gobol Sool iyo Sanaag in ay hal gobol noqdaan oo isu tagaan oo ay midoobaan oo ay dantooda ka tashadaan in ay suurtagal tahay arrinka marka adiga toos ku weydiiyo maxaad ka qabtaa waxaan maqlay warar sheegaya in aad raalli ka tahay ama aad la socoto wuxuu igu yiri arrinka wax alla waxaan kala socdo ma jirto shalay daraad ay marka reer Sool iyo reer Sanaag faraha isku fiiqay YouTube markii ugu horeysay maqlaba waa daraad iyo shalay TV ku arkay oo aan arkay oo tensionkii dadku aad u kacsan yahay reer Sool waxaan u sheegnaa reer Sanaag waxaan u sheegnaa markaasaan madaxdii kala wadiiyay waa maxaa Sool iyo Sanaag ka soo cusbanaaday imkana raw ku jiro safiirka Soomaaliya u jooga wadanka Kenya ayaan u diray bal arinta in la soo socodsiyo wixii ka soo cusboonaa oo aan ogeynba ugu dambeyntii madaxweynaha waxaan weydiiyay wax kasta waxa lagu saleeyay 4.5 waxa la yiraahdaa haddii aad doonaysaa cid magacaawdid waxaad ka eegtaa mar walba dhinaca 4.5 haddii meel la furayo waa 4.5 haddii la dhoofayo waa 4.5 marka 4.5 kan meel aad sida leedahay alla ilaahay 4.5 lagu ma qaybsan taas iyada iska socotay oo si Soomaalnimo u socotay maxaad qiyaas kartaa dabeetana madaxweynihii aad buu u fikray cabaar kadib ayuu u soo celiyay wuxuu yiri waa dhaantada ciyaarta dhaantada la yiraahdo ayaan haba yaraatay 4.5 ilaa hadda ku socon buuri sidoo jira ma ku wuxuu Jubbaland baa tagaysa Kismaayo dhaanta lagu ciyaaraya jitiga tagaysa dhaanta lagu ciyaaraya garow waa tagaysa dhaanta lagu ciyaaraya marka looma dhama cali
arrinkii 4.5 ma waafaqsana arrintaas marka 4.5 laftigeeda ciyaaraha laftu waxa loo baahan 4.5 la ciyaaro oo dhaanta marka la ciyaaro xagan kan la guuro oo laga tiriyo xagan kan ceergaabo la ciyaaro dhinacan kale jandheer la ciyaaro laakiin ilaa hadda dhaantada ayaan ku socon 4.5 ali aad baad mahadsan tahay barnaamijka aad noo soo bandhigtay laakiin weli waxba inoo haray oo dad badan ayaa ina sugaya inay su'aalo ka weydiiyaan meelaha tagtay iyo magaalada muqdisho iyo madaxweynaha su'aalaha weydiisay ka qaba aanu gudbo dhageystaha Cabdiqaadir Xasan mana maqlaysaa aad waa ku maqlayaa wari haye soo daa su'aashaada ama fakarkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ورياشة علي حرارة أنقرنا يو أديقة يا صاحبك عبد العار أدنى وحما مقعدين عن لفوق يا دمان الصحافة إن دقيسان إيسا أنا عبدك بعد من مقل الجونتا أردت علي حرارة absolutely كفتن كي أنا كويني ولا يشتغلت بوين جاي تعمل كاكا قدبو سؤال شيء إذا أنا قد بهايا وحاوي وأن هذا إيسو قمضي على حلالو أريمها الدولة النمو قادك الدولة النمو ده محطة الصومالية كتدا سيدا ذاتك أنه قربها أنه كأمن سنعي إيو وحي أعطوا عرقتي وسيستم كي ينظام كمان تكدا وسؤال شيء الكوبات مدى إذا الله بعد وأن ربعنا أنكو ويديو وحانو هالكام قاينو هذا ليه dadku markuu kaftamaya la dhaho qabyaaladu qurbihii bay ku hadhay iyo maadaama al-arag kala badan soo martay oo Soomaaliya ah waxa dalkii yaalay dhinaca qabyaalada ama wax walba badanaa dadku ay ka abaaraan dhinaca xumaanta ama taa iska elida in ugu badan labada su'aalood muhiimka ah waa weyn aad iyo aadna waa idin salaamay waayahay Cabdiqaadir su'aaluhu ku weydiiyay waa markii aad marisay magaalada Muqdisho iyo markaa ka tagtay qurbaha qabyaaladu aad u kala badan tahay soo warta ali markaad marisay oo dadka indheysay ku dhinac socdo ku ag socdo iyo markii aad qurbaha ka tagtay oo aad ogtahay qabyaaladu heerka ay marayso horta gobolada marka laga hadlayo caasimada Muqdisho oo kale gobolada waa dareemaysaa in qabyaalada wax walba lagu saleeyay Soomaaliya oo dhan marka horeysa laakiin Muqdisho gudaheeda marka tagtid qabyaalada ma jirto waxa jirta wax la yiraahdo dan hay marka qodobba danta ka dhaxaysa loo wada socdaa haddii aad Muqdisho tagtid danta aad wadatid waxaad u daba fadhiisanaysaa ama aad la kaashanaysaa dad aynan isku hayd ama isku reer ama isku qabyaalad baahayn ayaa suurtagal ah marka leenkaagu kuma xidhna marka qabyaalad gobolada marka la joogo Soomaaliya sida qurbaha qabyaalada loo hadlayo inkastoo qabyaalad lagu dhaqmayo haddana sida qurbaha qabyaaladu ay ka tahay kama aha dad fara badan oo dan isu keentay oo hawl wadaaga oo aan isku reer ahayn oo fara badan baa jira oo urur leh oo organizations leh hay'ado leh laakiin laba arrimood oo inankan ina weydiiyey oo arrinka qabyaalada waxaan anigu qabyaalada iyo laba arrimood baa jira oo dhibaato ku haya Soomaaliya waa qabyaalada iyo qurbo joogta labadaas waa dhib socda waxaan ka Soomaaliya haya waddanka horta markaad tagtid Soomaaliya waxa wada ordaya waa wada qurbo joog waan ku sheegay saddex ama laba calaamadood oo lagu garto qurbo joogta waxa lagu gartaa laptop bay wada isticmaalta badan waxa lagu gartaa alaaba bidaar bay leeyahay inta bidaarta la raalaha haato ee qolka sigiisa ku jirta iyo si laftiisa oo afdhiya oo kooxda isla metelaya bidaartaasna iyana calaamad bay u tahay iyo dhalabiya oo ay sitaan ama ma ay saxaydaan marka dadka qaar baa u yaqaanaan masaasad sida reer Hargeysa oo kale Hargeysa marka tagtid marka Yaasiin ninkii qurbaha ka yimi ma jooga la oran maayo waxay ku oranayaan war ninkii masaasada sitay ma jooga marka tibiya marka qurbo joogtu waxay meesha la tagaan in xil ay ku helaan hab qabyaaladeed madaxtooyada ka bilaabana inta badan marka nimanka qabyaalad ku keena dalku waa iyaga qabyaalada ku dhaqankeeduna waa iyaga waayahay dhageystaha kale aynu aliyow aynu eegno isna su'aasha iyo fikradu qabo waa Cabdullaahi Ibrahim mana maqlaysaa عبد الله إبراهيم وأنا مغليا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحكم الصوامية ورياش على حلال ياسين يا عبد العار
وأنا وصل إن كل يوم ضان كان مقلي صمرتي مدحوني الله كلنتي أنا سؤال شيء الواحد أو حسيت إلى قبلنا وقولي سيبقى قوة كعوض واحد يقول هاي هاي مقالها الصومالي يمكن تسكليتو فدنا مركز استوى خندرنا إن أرض جامعة الصبح لا قبلنا وقولي واحد هو شيء كان حمر أنت عشان فلأيو إني مقالها عند والله خلاص هذه عند إنسان محيط كاتفشة يعني مقدسو يلا قالها مقدسو سوريا هاي نفسك ويدين لهم ما فهمت way first of all daqaalaha muqdisho waa booming dalka Soomaaliya uu isu furan yahay marka halkan la joogo ayaa la yiraahdaa Somaliland baa gooday gobolka Puntland baa dhinacana xagga Jubbaland baa xagga Galmudug baa laakiin marka Soomaaliya la joogo reer Hargeysa ama reer Buro ama reer Awdal waxay ka qaataan baasaboorada federaalka ee Soomaaliya magaalooyinka Garowe ama Buuhoodle si ay ugu dhoofaan oo inta badan ay ugu tagaan waxbarasho India iyo Afrika sida wadanka Uganda oo kale marka waxa dareemaysaa in habkii siyaasadda aanay dadku inta badan ku dhaqmin ay ku dhaqmayaan habkii Soomaalinimada iyo isdhexgalka iyo in qofku uu shaqo u dooran karo meel kale oo shaqo ka jirto waa arintaas la sheegtay waxbarasho xitaa waxay u yimaadaan dadku magaalada Muqdisho caafimaad ahaan oo kale waxay u yimaadaan magaalada Muqdisho dhoof waxa loo yimaadaa magaalada Muqdisho shaqooyin waxa loo yimaadaa magaalada Muqdisho intuba ha ka jirto qaraxyo iyo dhibaatooyin la isku haysto magaalada Muqdisho haddana wali waa caasimadii waa meel wax kala soconayaan ka dhaqaale badan magaalooyinka kale ee Soomaaliya marka dadka waxay ku xirantahay shaqooyinka ay qabanayaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda marka laga tago waxa u badan dhinaca ganacsiga iyo hoteelada way ali aad baad u mahadsantahay aynu aadno dhageystaha kale Fayza Ibrahim hadii ay namaqlayso su'aal haday uu qabto wariye Ali Xaraari iyo fikradeeda intaba soo dhaw السلام عليكم لمانتم السلامية ورياش والسلامية على حرارنا والسلامية سؤال نقابوين على حرارة واحد تهي سياسة الصومالية أما طلد ودنك ومثل الصومالي زي حسن الشيخ يمدحوينها كقولبا بس ويجي السؤال وسياسة من ذوق عن بنايين با بدي كلام ويديني واحد تهي ما دو على حرارة كبري ورئيسي ومدحوينها كقاضي مدحوينون وربوها واحد لهم سولي السنات aragti taa ka duwan uu ka weydiiyay su'aasha ma jirta madaxweynaha oo gobolada ku aadan iyo midnimada Soomaaliya Ali waya aad iyo aad ma hasan tahay Fayza labada su'aalood baad aan kala dhigo waxaan ku horeynayaa tan Soomaaliya sanad horta barnaamijka waxa la yiraahdaa kaftanka siyaasadda su'aaluhu deeply ma aha su'aalo aad u adag oo siyaasadda Soomaaliya ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca awood qaybsiga Soomaaliya uga hadlaysa laakiin waxaan uga hadlaynaa waa si kaftana su'aasha Soomaaliya sanaag waxa weeyaan madaxweynaha aan ila waan weydiiyay waxaan u jeedaa in warka Soomaaliya sanaag wali meel weyn ama meeshii ay rabeen aanu gaadhin uu yahay mid hadda abaabulkiisa iyo bilowgiisa uu bilaabmay dabeetana ay ku lamaan tahay durba murankii iyo qayladii ugu horeysay iyo sanqadii ugu horeysay oo baxday shalay iyo maanta kadib markii nin hadlay oo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo ah hadalkiisii dad badani ay aad uga cadhoodeen inkastoo dad isla reer Khaatumi ay ka xal mariyeen dadka kale ee walaalahooda ee reer Maakhir marka su'aashaasi sida u dhacday waa taa su'aasha labaad ee kale aad ku lifaaqday tan ee ahayd iyay gacanta ugu jirtaa maamulka iyo awoodda Soomaaliya Fayza marka dhab laga hadlayo oo barnaamijkan aan ka saarno kaftanka siyaasaddu waxa weeyaan cid ay gacan ugu jirto oo Soomaaliyeed la madaxweyne wala madaxweyne gobol wala nin kale oo meel haysta wala ergey midna ma jiro intaba rumayso ama ha rumaysanin waa loo yeeriyaa yeeriskuna wuxuu ka soo baxaa international communities haddaad maqashid waa la heshiiyey waxa heshiiskaasi keenay bulshada caalamka haddii aad maqashid gobol iyo maamul baa la sameynayaa cidda saxiixa ugu dambaysa saxiixaysa ee ogolaanaysa iyaduna waxa weeyaan bulshada caalamka inta laga bilaabo madaxweyne
ilaa madaxweyne goboleedyada Soomaaliya dhammaantoodba waxa weeyaan dad hoos yimaada bulshada caalamka ee ay ugu horeyso ururada kale ee inta badan Soomaaliya igad la yiraahdo iyo kuwa kale ee qaramada midoobay oo markaasi ergey gooniya loo diray marka taasna jawaabteeda intaasi ayaan ku soo koobay wayay ali aad baan waasanta kale inagoo gabagabadii ku dhow aan u gudbo dhageystaha kale Cabdiqaadir Warsame Faarax oo isagu khadka telefoonka ku jira dhageysta haddii aad maqalsi su'aashaada iyo waliba fikirkaaga intaba وادي السلام يا علي حراري ورياش كريتو عبد عاري دمان وادي السلام يا سؤال شيء هو من حق الرماء بوشوه كسابسا وليه مر هدو تجي مقالة مقدشو وحاول يحسو ركا لقارة دادكو قاعدتا مركا وحالي على قولكم مركو قرباء كتغو وبيل باكستان وكدقا sida hadda wariyuhu noo sheegay airportka markuu ka baxay hotel baa la geeyay kabada madaxtooyada marka wariyuhu su'aashaydu waxa weeye magaalada waxa la yiraahdaa dawladdu qaybo gaar ay ka degan tahay meelo kale oo sida Bakaaraha iyo Baar wax iyo dhulkaas iyo lama tagayaan Uruguay marka wariyaha waxaan weydiinayaa ma ku soo wareegtay magaalada oo maxaad aragtay oo ku soo aragtay xagga bulshooyinka sida ugu nool yihiin ma ku gashay maamaatanta al-Xaraari horta marka ugu horeysa tegitaanka markaad meel ka baxayso meel marmaraysa magaalada Muqdisho marka xaqiiqada laga hadlayo waxay ku xiran tahay riskigaagu wuxuu ku xiran yahay hadba inta jeer ee aad booqatid meelaha xukuumadda ay joogto haddii aad tahay nin qoyar socda oo aanu badnayn meelaha dawladdu ka taliso inaad tagtid waxa laga yaabaa inaad 100% aad nabad gashid laakiin xafiis dawladdu leedahay haddii aad 3 jeer ku noqotid meel ay doonto waxa ka timaadee waxa iman karaysa in lagu toogto ama qarax la maleegay in markaasi aad ku nafoydid taas waa taa Muqdisho waa meel dhisan iyo meel duntay waa meel ama jid aad u socda dhismihiisu oo lagu tartamayo aad lagu tartamayo iyo xaafadaha qaarkood oo la ilaabay oo burburkii dagaaladii sokeeye ay wali aad uga muuqdaan dadku waa dan yar iyo milyaneero Muqdisho waxa jooga dad milyaneerisa oo qaarkood ay qaataan qandaraasyo gaaraya 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah dad baa jira qoodiya Unisom cuntada ay cunto iyo gaaska ama petroolka ay isticmaalaan oo dhan dad baa qandaraas Soomaaliyeed baa ku haysta oo ganacsadayaal ah oo qaata 100 milyan ilaa 200 milyan inta u dhaxaysa dad baa iyaguna jira shirkado keena oo dabeetana qandaraasyo ka siiya isla Muqdisho iyana ilaa 70 milyan oo dollar ayaa qaarkood ay hantiilayaal yihiin Muqdisho waxa jooga ilaa 13 qof oo aan oran karayo 13 ka qof ninka ugu yari 50 milyan oo dollar buu haysta dhinaca kalena dad baa gidaarada jiifa oo liita oo bishii $1 aanu soo gelin labada bulsho ayaa ku nool magaalada Muqdisho laakiin waa magaalo haddana socota oo aan ka dareemeyn waxa inta badan marka qurbaha la joogo laga sheegayo marka laga hadlayo maamulka dawladda Soomaaliya oo kale dawladda Soomaaliya waxa weeyaan cidba kama rabto in la yiraahdo Muqdisho haysata ama ma haysato sideedaasay ku qaracsan tahay Unisom ayaa ilaalisa meelaha gaarka ay degan yihiin marka damba kama leh in la yiraahdo maamulkooda afgooyo ma gaaro iyo maamulkooda guriga shaqaalaha Makal Mukarrama ma gaaro iyagu taas uma wata laba siyaasi ay ku qanacsan qad ma santa way ali aad baad u mahadsantahay inagoo gabagabadii ku dhow barnaamijka kaftanka siyaasadda aynu u gudbino dhageystaha ugu dambeeyo Ali Yaasiin khadka telefoonka ku jira dhageyste mana maqlaysaa su'aashaada iyo waliba ra'yigaaga intaba waad ku furantahay علي هذا كل ياسين وسلام ياسين على حرارة يا عبد العال كل حين بعد بلدي سلام يا هذا رقم هذا هنا رئيس حساب بدني يتجيست كفتن السياسة ده مشون شو على حرارة سؤال شيء واحد كوسع سنتها ما شيء يصير ترى ما كنتش سوا واحد فرميش لما الله يا أمريكا لقيت ريبورتك
si qofku uu ogaado calaamadaha uu iska ilaaliya khatarta iyo aagaga khatarta ee aan la geli karin si qofku waa ilaahay dartiis meesha uu ku beegmo isaga nasiibkiisa laba nin baad la sheekaysanaysaa information ka dad baahan tahay ninka taxiga aad la socotid wada iyo ninka hotelka aad ku degaysid jooga ama iskale ama counterka fadhiya labada nin ayaad kala tashanaysaa talada iminka aad aniga weydiisay labaduba waxay ku siinayaan information ku anfaca oo nabadgelyada wax ka tari kara waayahay al xaraari kaftanka siyaasadda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa kaftanka siyaasadda oo had iyo jeer aanu ku eegno hadba maamulkii jira iyo weliba meelaha Soomaaliya inta u badan haddaba ma garan karno wiiga dambe Ali Xaraare meesha uu ka dhigi doono iyo meesha uu tagi doono waxaan aad u salaamaya dadweynaha sharafta leh ee dhageysanaya iyo kuwa waliba na daawanaya halkaan nagala socotaan waa Kalsan TV anigoo ah Yaasiin Ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh